السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان قيرتك kusoo dhawaada video cusub. Video waxaan ku sharxayaa sida loo train gareeyo imagine face markaa isticmaalaysid sida wejigaaga u train gareynaysid. Maalmihii la soo dhaafay traininada iyo testing ayaan wadnay. Dad badan way ku guuleysteen, dad badanna ma aysan ku guuleysanin. So dadka aan ku guuleysanin marka ciladahooda iyo waxaa la wadaagaya inaysan sidaas ku soo laabanin oo aad si careful ah u train gareyso marka aad training sameynaysid. Because training ka basically waxa waa wejigaaga clear ah inuu AI ga fahmayo loo baahan yahay. Wejigaaga markii asoo clear ah u baasto marka waxa dhacaysa in sawir clear ah oo high quality adiga ku eg inaa hesho. laakiin intii sawir oo mugdi ah ama wejigaagan fiicneen ama si uun adoo ah hadii aad train gareyso dabcan jawaab fiican ma helaysid ama result fiican ma helaysid. Marka waa in sawiro fiican aad soo doorataa oo light-kooda wuxuu wejigaaga u aad u yahay. So marka waad login adaysa. So Google hadda aan support gareyna ciwaanka Google ka dooro. Okay, markaad soo login gareyso marka page-kan uu keena automatically waxaad aadaysaa training center sababtoo page-kan waa page-ka training-ka iyo waxyaalahaas uu ka dhacayo. So markood waxaad samaysanaysaa model adiga ku gaar ah oo aad ku train gareynaysid. Marka modelka basically waa face-ka qofka aad train gareynaysid. Waa marka face kalima waxyaalo kale badan la isticmaali karaa laakiin for now face focus ka saarayna. Marka create new model leedahay modelka magaciisa u bixinaysaa tusaale waxaa leedahay training something like that. kadib modelka typekiisa person basically nin inaag waa loo isticmaali karaa ama dumar ama dii kale mana dhigi for now mana train gareyno waa mana dhihi doonaa. Privacy-gana waxaa dhihi doonaa private. Public haddaa dhahdo which means dadka dhan waa isticmaali karo. marka private inaad dhahdo iska hubi kadibna waxaa leeyahay register. Then training-kaaga marka meeshaan uu kusoo galaa. There we go. And then basically waxaa u baahan tahay inaad new samples dhahdo. hadda hadii aad dhahdo start training which means waxaa lagu dhihi doonaa at least 20 sawir ayaa u baahan tahay which means 20 sawir sababta u dhaheen waxa waaye ilan AI-ga waxaa la rabaa in wejigaaga uu ka generate gareeyo sawir walba sawirka u baahato. marka at least 20 sawir waaye 20kaas waa ka badi kartaa. The more image as is so the more AI-ga uu fahmo wejigaaga oo sawir quality leh inuu ku soo saaro. marka 20 sawir aslan hadii minimumku uu ahaa oo ah wax cabdi keento ama wax aanan jirin ama sawir mugdi ah ama sawir wejigaaga aan la fahmaynin AI kuma aqoonsan doono. marka hadii 20 wax ka badan helayso soo gali ilaa 65 sawir lagu ogolyahay inaad soo upload gareyso. saa ku sheegayna waxa waa AI wuxuu ku shaqeeyaa the more aad data fiican siiso the more uu asigana data fiican ku soo celiyo. marka hadii sawir kale badan aad helaysid soo upload garay. so waxaad leedahay upload new sample. sawirada marka aadan soo upload garey karin kuwan oo kale adoo meel fog fadhiya oo kale ama adoo mask wato oo kiyaal ku sii jiro adoo sawir shucaac ah ama sawir wejigaaga aan la fahmaynin ama sawir asxaabtaada ku dhex jirtid ama sawir koofiyo ku jirto koofiyadan ay wejigaaga qarinayso aad kan si aad wejiga si fiican looma arko. marka sawiradan oo kale waa iska ilaalinaysaa. sidoo kale sawirada noocan oo kale ah waa very good. waa sawir oo full ah waa laga rabaa laakiin wejigaaga inuu muuqsan yahay laga rabaa. sidoo kale kan oo kale daa fiirsan kan oo kale dhammaan wejigaaga waa loo jeedaa. okay, sawirada noocaas oo kale aad ay u soo dhaweynaa AI-ga wuu ku fahmi doonaa. kadib browse files aad dhigi kartaa ama ku soo deyn kartaa browse aad dhihi doonaa. so fileshaada marka soo upload gareysanaysaa images-kaaga tusaale hatta waxaad samayn kartaa inaad qayb soo upload gareyso. haddii sawirada hadda ku diyaarsaneen kuwa diyaar ku ah iska soo upload garay ha ku sii yaalaan kuwa kalena hal ugu soo darso. tusaale waxaad dhigi kartaa 5 sawir oo baahanahay for now. tusaale ahaan like 5 sawir kala duwan aad dooranaa. 5tan sawir sii qabaa leeyahay as you can see. so shan soo saari kartaa as you can see sawiradeeda high quality waaye size-kooda daa fiirsay. so upload adeena. so waxa soo saari kartaa marka hal mar waa soo wada saari kartaa. hadaa ratidna qayb soo saari kartaa wax mushkil ma lahan. the more markaas aad data siiso AI ga the more uu ku fahmo. marka within minutes depending on sawiradaada iyo internetkaaga speedkiisa sawirada ayuu upload gareynayaa. at the same time marka waxaa arki doontaa resultskaaga iyo sawiradaada oo meeshaan soo galaan. alright, sawirada marka aad soo upload gareyso aad soo dhamaystirto sawirada aad u baahneed oo aad soo wada saarto oo aad ka soo hubiso fulnimo as you can see wejigaaga sidoo clear u yahay sawirada aan soo upload gareeyay. then waxaa sameyn doontaa start training aan leedahay kadibna waxaa leedahay okay. so automatically marka wuxuu sameynaa swiftly kadibna datadaada uu upload gareynaa trainingkiina wuu bilaabaa.
markuu trainingka dhammeeyana waxaa lagula soo wadaagi doonaa email oo lagu dhahayo emailka trainingkaagu u dhammaaday soo sawirada trainingkooda waa bilaabi kartaa marka at that time ayaa waxaa go'aaminaysaa marka inaad sawiradaada aad generation ku bilaabdo so next videos waxaan kaga hadlaynaa marka sidee sawirada loo generate gareeyaa featurada kala duwan oo imagine face aad ka heli karto so that's it thanks for watching I'll see you next time